السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada badbaado action waxaan doonayaa halkan inaan in yaro maxaa yiraahdaa faalaha kaga bixiyo laba shaqo oo kasoo kala baxay hay'adda loo yaqaano Polish Humanitarian Action ama BAH waa la soo gaabay ama BAH. Polish waad garan kartaa kolay British hay'adani marka hay'addan waxay doonaysaa waxa loo yaqaano WASH cluster co-leader berta oo ah national position waxa laga rabaa marka laga hadlayo waa qof Soomaaliya ama qof somehow jinsiyada Soomaalida sita locationka shaqadan looga baahday waa Muqdisho. Shaqadani waxay soconaysaa 12 bilood. shaqada qofkaas wuxuu bilaabayaa 8 January 2023 therefore hay'addani haddaad maqasho WASH program baa jira la WASH program waxa weeyaan waa barnaamijyo cluster raaca oo isku xidhan oo ay hogaaminteeda qayb ka tahay hay'adda loo yaqaan UN OCHA. UN waxay ka mas'uul tahay sanduuqa loo yaqaan Somali Humanitarian Fund oo ah sanduuqa mucaawamada Soomaalida lagu warayo SHF baa la yiraahdaa qofkii garanaya sidaas darteed waxaad samayn kartaa haddii aad u baahan tahay inaad shaqada wax ka fahanto waxaad study ku samaysaa waxaan loo yaqaano WASH programka ayaad yar akhriyi kartaa because UN iyo international NGOs waxay leeyihiin cluster coordinators bay leeyihiin oo wixii protection ka ah wixii human rights ah wixii child protection ka gaar baa isku xidha sidaas darteed qofkii position ka awoodi karaya dad WASH maqasho waa water sanitation and hygiene programs ka ay weeyaan shaqadan laguma dirayo sidaan filayo lagu diri maayo email waxa weeyaa waxa lagu dirayaa waa la apply garanaya waa online oo portal baa username baad samaysanaysaa markaad halka ugu dambaysa markaad ku dhufato ay ku qoran tahay apply here waad ku dhufan deetana kulay ama user baad yeelan doontaa marka hore aad sii lahayd ama user subaad samaysanaysaa. deadline shaqadan waa 8 December 2022 marka laga faa'iideysto shaqada laga faa'iideysto hala xareeyo hay'adda loo yaqaano SRCS waa bisha casad baan kulay bisha cas weeye bisha cas dhowr shaqays waxay siisay reproductive health ka mid laakiin shaqada halkan soo gelin xaween waa communication officer wax lagu baahan garowe meesha la yiraahdo ee lagu baahan yahay job grade kan waa number 4 department unit ka hawshan tagaysa waa communication department corporate ka shaqada ka dhacaysa waa Puntland laakiin report wuxuu gudbinayaa Muqdisho area marka communication kani waa qof xidhiidhintii isku dubaridkii waxa loo yaqaano designing-kii development-kii implementation-kii evaluation-kii ayuu dejinayaa waliba gaar ahaan si comprehensive communication strategy across the channels marka the channels waxa weyn hay'addu shaqo badan bay qabanaysaa Soomaaliya salaam bisha shaqooyin badan kala duwan bay qabanaysaa marka all this means kaas oo dhan waa qofkaas uu design garanayaa evaluation badan buu sameynayaa and after all wuxuu kaloo sameynayaa in la uu support gareeyo cooperation ku sameeyo dhamaan wax every consent of SRCS programs in the area waxyaabaha looga baahan yahay marka waxa kale ka mid ah inuu ka qayb qaato qorshe dejinta fulinta iyo dabagalka qiimeynta hawlaha istiraatiijiyadeed ee priority-ga ay kala leeyihiin shaqooyinka SRCS Puntland waxaa kaloo ka qayb qaadan karaya healthcare in danger loo yaqaan HCID ga loo yaqaano programkan uu ka qayb qaadanaya waxyaabaha aqoonta looga baahan yahay xagga qualification ka waxa looga baahan yahay bachelor degree xagga la xidhan communication ka humanitarian action ka
luqadda ingiriiska inuu qofku ku fiican yahay international relationship wax ka yaqaano ama journalistic wax ka yaqaano dhowr sano way aragnimada 3 years maximum ayaa lagu baahan yahay waa inuu soo kale wax ka fahansan yahay politicalka socialka mediaha arrimaha deegaanka waa inuu wax ka fahansan yahay xagga wada xiriirka iyo furfurnaanta communicationkiisa waa inuu fiican yahay interpersonal skillka inta badan you have to know that even waa muhiim taasi computerka xagga office ka kale waa inuu ku fiican yahay that's all ma shaqo fudud hal xareeyo where is are the Puntland me ya from Garowe ka soo xareey ama Hargeysa ka xareey ama Jabuuti ka soo xareey ama Xamar ka soo xareey ama Ethiopia ka soo xareey it's up to you inshallah inaad hawshaad soo apply gareyn karto before waxaan ka codsanay intaan shaqada apply gareyn ka hor read your CV-ga hubi eeg check gare kadib inshallah ku tuuro saasay noo ballan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.